السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي لما أردد كحرا برتيدا بيتي أكاديمي iyo sidoo kale ardayda qaadata koorsooyinkan ku saabsan programka Twinmotion maanta waxaan qaadanaynaa casharkeenii labaad insha Allah maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa qaabka projectiga ku saabsamaysatay SketchUp ama ArchiCAD ama Revit waxa raba ha ahaado in loo keensanayo programka Twinmotion loo dhex keenayo okay waxaan tagtaa markii aan rabto naqshadii hore waxa uu soo diyaarinay naqshadan waxaan kasoo dhiganay waxaan kusoo save garaysanay ilaa laba qayb iyadoo Twinmotion ahaan iyo iyadoo SketchUp aan ka dhignay okay qaabka loo soo gelinayo saddex option aan isticmaali doonaa insha Allah okay waxaa sameysaa marka ugu horeyso waxaa tagtaa import qaybtaan isticmaalana waa import material intaan dhan waa gaari doonaa import markaa tagto kadib qaybtaan click siinay waxaa tagtaa geometry kada direct linkigan waxaa lahaa markii uu SketchUp iyo ArchiCAD iyo Twinmotion kaga isku xiran yihiin oo ay isticmaalayno programkan ay isticmaalayna waxaa la direct link marka hadda ma rabno inaan direct link isticmaalno kana ku soo dhafanay qaybta markaa ku dhafato failkana furay positionkana furay ama your mail meesha uu ku yaalo kadib waxaa tagtaa failkaaga meesha uu ku yaalay tagay dhag waxaan tagaynaa projectkan meesha uu noo yaalay ku dhafo qaybtan antimaw kadib waxaa tagtaa course 2 kadib Twinmotion sax labadan habaan oo tala waa kan SketchUp kana waa Twinmotion hadi kana soo gashanayna marka koowaad kadib okay la waxalahan inta wax ma ka bedelay import task dhaamar okay naqshadeeni hadda si direct u soo gashay oo jeeda okay waa ujeedaa mo si direct u soo gashay waa kan waa tiirarkii timlaan naftirkooda waa marka xagga tagno waa iskaga bixinaynaa ayaga dhan wax oo hadda ma isticmaali rabno waa laga wada saaraa tukrigan no problem okay kan saana loo soo geliyaa marka SketchUp ArchiCAD markaa joogto maxaa waay wixii dhan hadda way ku jiraan mujirta kuraastii wixii dhan way ku jiraan waa soo geliyi kan sidoo kale mar labaad waxaan ku tusinaa kii SketchUp-ka oo haday aan ka xiray sharkii ka horey aan ka xiray layerka ahaa furnitures yay ugu soo darin asina waa kana waa kusoo darsanaa waxaan leeyahay open kadib isla okay aan leeyahay okay intoo gala marka isla positionkii waa isdul saaran yihiin labada hadda mid haddaa dileedo mid kale ay soo haraa fiiri kan hadda haddaa iska xiro kii oo Twinmotion ka ahaa waa kan waa iska xira fiiri maxaa ii soo haraya kii oo SketchUp-ka failkii maanta kuma jiro waa ujeedaa moo ma ku jiro waxa la furniture dhan kuma jiro furniture iska dhan kuma jiraan okay sidoo kale tiirkii inta oo kii kale oo ka maqnaa kan kama maqno ujeedaa kan si direct uu xiran yahay laakiin kan markaa iska xirno kan soo qaadano fiiri anta muxuu sameynayaa coloring waa colorkiisa maqan kan hadda ujeedaa hadda coloraa ka maqan kan tiirkii dhan waa la dhumiyey marka saas importiga saana loo sameeyaa marka okay sidoo kale waxaan rabnaa albaabkan hadda inaan ku isticmaalo maraba naftirkiisa waa iska dili xiraa sidoo kale waxaa sameyn karaa waa iska dileeda haddaa raban waxaan dhahaa dileed okay kan markaa ka dileedo kan kale sidiisa ugu jiraa fiiri oo soo laabanaya laba layer laba qayb ay keliya macnaha kan waa ka dileeday kan waa ka dileeday waxaan dhan saano iskaga dileeday ma fahanta okay intaas markaa ka gudbo kan hadda marka waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah kan markaa goonigiisa u isticmaalaysid ma ka bedeli kartid waxyaabaha oo ka mid ah haddii ArchiCAD-kii aa ku laabto hadda kursiga maxaa la dhahdaa wallkan dhan aan tuuro kan ma igu soo muuqanaya macnaha waa kana ma saameyn ku yeelanayo laakiin haddii programkii kale aa isticmaalayo direct toos haddii uu yahay wuxuu noqonayaa in macnaha labada wixii oo ArchiCAD-ka ka dilaydo inuu intana intaas waa isla fahnay qaabka loo soo geliyo marka waxaan rabnaa inaan materialkii wax ka bedeli karno anagoo iska ArchiCAD-ka joogno wixii aan ka bedelno projectkeena inuu iska bedelaa rabnaa marka waxaan sameynaynaa waxaan wax ka bedelaynaa kow qaabka loo soo gelinayo intaan hadda ma rabno kan waa iska xiraynaa waa iska deleedaynaa mar labaad waxaan ku tusinaa qaabka saddexaad ee programkan wax soo geli karo kan waa iska deleed sidoo kale kan iska deleed hadda nadiif waa ujeeda meeshaan waxaa tagtaa ArchiCAD-kaaga tag control Z waa soo ceshatay
kadib waxaa dhehe meeshaan ark waxaa ku laabanaya sketchupka meeshaan twin motionka ku laabanaya kan waa iska deleedaya kow kanna waa iska deleedaya labo inta markaa deleeda waxaa dhehe kan import kadib waxaa dhehe landscape maarata maya waxaan rabaa kan keligiis inaa soo geliyo directi ahaan inaa soo geliyaa rabaa isku xiro kadib ani hadda waa ii samaysan yahay hadda ma way soo qoray arkad zero ah ku furan hadda feelkan maxaa ku qoran arkad ref zero ah ku qoran marka saas inuu kusoo qoraa la rabaa then waxaa dhehe import ilaa hadda isbedel ma samayn then waxaa ku laabataa arkadkii ku laabanay waxaa tabanay qaybtan oo ah direct linkii uu sameeyay kadib calaamada refresh buu sameynaa then wuxuu aadaa markii arkadkii hadda waa soo galay mujeedaa hadda mujeedaa waa soo galay marka waxaan ku tusi rabaa fiiri hal mar waxaan rabaa inaan wax ka bedelo marka kan asoo saas eh waxaan tagaa arkadkii waxaan deleedaa kan ark deleeda kasoo qaad markii aan dhaho reference aan dhaho ku laabto arkadkii fiiri antana waa laga deleeday marka saasaan rabnaa marka inaa wixii inta xagga aa ka deleedno antana inay ka deleednaadaan aan rabnaa marka okay kanaa imaanaya waxaa leedahay inta furo arkadkii ku laabo control sade kiyaa soo ceshtay kadib kanaa sameynay okay intaas markaa ka gudubno wax ugu horeeya oo la sameynayo markaa twin motionkaaga naqshadaada soo gashato waxaa ugu horeeya waxay tahay inaad sawirkii samaysatid horta qaab sawirkaaga inaad diyaarsatid qaabka uu ku noqonayo waxaa tagtaa qaybtan media ay ku qoran tahay kadib intaa waxaa dhehe create ama click your first imagekaaga ugu horeeya aa samaysanaya kadib imagekaaga markuu saan u samaysato waxaa imaanaya kadib qaybtan camera ay ku qoran tahay focal lengthiga waxa uu ku qabanaya inaad soo dhaweysid naqshadii oo base garaysid saan waxaa isticmaalaya marka fallaaraha oo keyboardkaaga isticmaalaya si aa naqshadii u jeedisid aa isku soo dhaweysid kadib hadda naqshadii markay sawirkii markuu saan noo noqdo fiiri saan ugu horay sawirkii saan u noqday waa kana sawirkii kadib intaa waxaa dhehe refresh hadda sawirkii saan uu kugu xiran yahay waa kana sawirka hadda wax ka bedel samey rabno waa sidan okay inta kale kanaa reference noo yahay marka haddii sawir aan bedelayno dhow kanaa ku bedelaynaa kanaa sameynaynaa wax dhan kan markaan qurxino wixii dhan kanaa base ahaan ugu qaadanayna marka hadda maxaa ujeedaa maxaa isbedelay kalarkii loon oo kale oo isku bedelay inaa waxaan dhan inaa hadda update garaynaana laga rabaa waxa ugu horeeya aan sameynayno waxaa waaye inaa horta landscape-ka inaan diyaarino landscape-kan se u diyaarinayna waxaa tagay kow qaybtan waxa ugu horey vegetationkan geedihii wixii adiyaana kow landscape-ka waa kusoo darsan kartaa kow adoo landscape-kaas kaas ku diyaarsan kanaa kusoo darsanay kan markaa kusoo darsato hadda muxuu noqday landscape-kii korow jiraa waxaa dhehe marka naqshadii dhanaa hoos aada marka ujeedaa waxaa dhehe marka waa xire morfigan waxaa keligeed sameynaya naqshadii keligeed aa dooranay fiiri feelka naqshada furay tag feelka naqshada oo ref ku qoran kadib asaa dooranaya waxaa leedahay kor igu soo qaado xir banaankii soo bixi ujeeda hadda banaanku uu soo baxay sawirkeygana hoos uu ku jiraa ujeedaa sawirka marka xilliga aa qaadayo muxuu ahaa xilliyo kaas ii samaysanaa hadda ujeedaa marka naqshadii wixii dhan banaankay ku yaalaan kan hadda waa iska daleedi kartaa marka kan qabo ma u baahnid waa iska daleeday marka anta ka daleed doontana wuu ka daleed maa refresh hadee bes kan hanta marka maba daleedayni waa noo yaala xagga wixii ka daleedna noo yaalan antaa noo yaala okay then kan hadda waa noo samaysan yahay sawirka ujeedaa waa kana then waxaan rabnaa marka kan landscape inaad diyaarina naftarkiis qaybtan aan ka dhigno meel oo xoogaa kala sareysto aan ka dhigno waxaan dooranay qaybtan imaanaya waxaa waaye qaybtan waa rice qaybtan waxaa waaye big hoosaa loo dhigaa qaybtan waa kan marka waxaa rabaa inaa wax yar oo beena inaa soo kiciyo saanimo ujeedaa wax yar burburi waxaasaa ka sameynaya haddii aad rabtona isla asib waa iska daleedi kartaa wax oo muhiim oo saas oo ku yahay malaa
fiiri marka waa kana qaybtaas dhan waxay noqotay buuro. Okay, kan hoos inaan u dhigaa rabaa maxaan dooranaa marka waxaa imaanaya kanaan dooranaa waxaa leeyahay qaybtaan dooro dhig kadib qaybtaas dhan hoos u dhig waa kana. Okay, sawirkaaga marka waa kana referensigiisa hadda sawirkiisa haan ugu samaysan yahay. waxa ugu horeeya marka wixii in geedihii wixii lagu soo daro marka kan haddii inaa isticmaalno rabno adaabku uu tusinaya bis kanna waa qaybtii dhagax iyo waxaas uu ku daraa buri inuu qeybaha burburi waxaas uu kuu sameynaa saa kuu sameysana iyagoo automatic waa kan way kuu samaysan yihiin kuwaan iyagoo automatic uu kuu sameynaa kaas. laakiin kan kale maxaa waaye kan maxaa waaye wixii dhan waa area siman waa kan areadiis way simantaa laakiin kan asaa kuu sameynaya buurihii wixii. Okay, kaas marka labadaba ma rabno inaan isticmaalno labadaba iska daliidayna kan hadda ma baahni. Okay, anina samaystaa rabaa. Okay, waxaan kusoo daraynaa qaybtan filtrationka sida loo isticmaalo geedihii geedaha marka aday kugu xirantaa marka qaabka u isticmaal geedihii aad ku darsanaysid aday kugu xirantaa midkaa rabtaa kusoo darsanaya waa kaan qaybtan dhan waa geedaha ku jiro intaan oo geed ku jiro maasha ama dhir ahaan loogu talagalay adiga ku isticmaal naqshadaada kusoo darsato waa kana intaa kusoo darsan kartaa. Okay, shay markaa rabta inaad kusoo darsato waxaa sameynaya soo qabanaya daraagaa soo dheh intaa keena bis alahaasaa laga rabaa ay kan soo qabo anta keen kan soo qabo anta keen bis saasaa u keenay marka waxaan keenayna marka geedihii wixii aan ku daraynaa waxaa sameynaya geedaha waa layskama dhiganaya mida waa dooranaya mid oo xoogaa guriga ku anfacayo oo macquul ah soo qaadanay kuwa macquulkee inaad toosisana ay kaa rabaan aas ka soo qaadana dhag kuwaan hadda ma ku haboono marka geedaha inay ku habboon yihiin aan rabo mar walba maana in la iska dhiga lama rabo. kuwaana mar waxaa dhiga gees aan leedahay xirsaan usoo weynay kana malanta iska dhig xirsaan weynay geedaha marka waxaa dhahaya geed isku jiraa la rabaa hal geed keligiis lama rabo geedo badan isticmaalaya marka oo kala duwan. Okay, kan hadda baal badan kii iska dileed marabno adi marka geedahan soo soco midkii kuwa oo qorqorxoon kan ama iska isticmaal kuwaan iska isticmaal like this kuwaan dhan waa isticmaali kartaa geedahan dhan waa isticmaalaya marka waxaan kusoo darsanaynaa wixiina oo macquul dhag kan ama geedaha iska gey iska yaray. Okay, intay maaw kan ama kusoo darso dhag. Okay, geedaha dhan inaa kusoo darstaa laga rabaa marka toosisid then kuwaana iska soo darsanaa ayagaa marka kala duwan qaab loogu soo daraa jirto. qaabkan hadda waxaa sameyn weeyaa one by one inaa hal ugu soo daro sidoo kale waxaa sameyn karaa in micnaha geedahan hal mar aa samaysto aa kusoo darsado kanaa taawane babulatekan kadib waxaa taawane qaybtan waxaa imaanaya paint waxaa kusoo darsanaya marka geedihii aa u baahan tahay dhan intaa keensanay dhag geedkan waa u baahanaa intaa keensana kan waa u baahanaa intaa keensana mar labaad waxaa u baahanahay sidoo kale wixii aa u baahan tahay dhan intaa kusoo darsanay dhag. Okay, kan markaasaan kusoo darsa hadda maxaa wadataa geedihii aa wadataa marka waa kana fiiri marka ayadoo hal mar ay ku wada dhigaya ujeedaa hal maraa lagu wada dhigaa marka. Okay, hadda kan wuu yaryahay waxaa isticmaalan qaybtaan aa ku weyneyna diameterkeeda ujeedaa waa kana. Okay, inta dhan saan wixii aa u baahan tahay hadda kusoo daree marka kan qabo haddii aa u baahan tahay intaa ku daree inta lee ku daree bis asaa ku kordhinaya guriga naqshada asaa kusoo kordhinaya intaa ku daree qaybtan ka dhamaa qaybtan waxaa imaanaya brusheska iyagana waa kusoo darsanaya gudaha geedahan waa geeda yaryar iyagana waa iska soo darsanaya hadhow haddii aa rabto midka aadan rabin oo inaa isticmaasho aadan rabin waa iska daleedi kartaa hadhow wax meena le malahan. Okay, intaas hadda markaa ku soo darsan intaa fiiri oo kelig sawirkii aa siiyo waa kana geedihii maxay noqdeen hal maraa lagu soo wada daray. Okay, tan markaa sameyso wixii ku dhiman adaa update garaysanaya marka intaa ku darsanayo
positionadii wax kaaga dhiman yihiin adaa ku darsanayo like this intaa mar ala soo dhig kanad waa caleentiisu geedaha caleentooda markay zayd u badan yihiin qaybtaan summer waa ka rabtaa winter waa ka rabtaa intaa ka bedelay okay so intaan waa bedelnay kanna maladan sawirkeen okay waxaa kaloo ku daray kan hataas kaa kusoo darso okay intaas markaa samayso geedi wixii aan u baahnaa waa kusoo darsay bro marka waxaan kugula talinaa marka geedahan marka kusoo daraysid programka haddii aad tahay programmadan uu yahay kuwa laptopkaaga laptop graphic aan lahayn ha u isticmaalin sidan sababtoo ah waxa uu noqonaa culays oo keenaa marka waxa u isticmaali kartaa keliya inaad hal hal usoo dhigato meelihii oo positionka uu ku habboon yahay bis inaad dhigato saasaa loogu soo dhigaa marka intaas haddaa shaqaan intuu nagu eegaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu